maanta tababarkii iyo fahmadina la siiyay waxa ii horseeday inaan waxyaabo badan oo igu soo wajahan hadda kadib aan iska difaaci doono sidoo kalena waxaan ku baranay call source ama emergency markay dhibaato ku qabsato qofna uusan markaas ku ogeyn sida aad caawinaad u dalban lahayd oo aan si fudud ku fahanay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galay training-ka ay bixinaysay Sojra waxyaabo badan run ahaantii ka faa'iiday aniga ahaan hadda iska hadlo inaan badqab u heli karo mobilkayga oo kaleeto aalad aan ku baraarugsanayn oo markaas ii suurto gelinaysa inaan mobilkayga kaga ilaashado tuugada ka jirta haddii taleefankayga uu gacan galo oo kale inaan badbaadsan karo ayaan ka faa'iiday maanta tababarkan aan qaadanay oo inoo qaban qaabisay hay'adan Sojra يعني wuxuu ahaa tababar aad u wanaagsan يعني anaga gabdho ahaan marka loo fiiriyo waxyaabo badan aan ka faa'iideynaa way ka mid tahay sida amaanka mobilkeena ama xogteena aan urursan lahayn ama u ilaashan lahayn ani ahaantayda maanta waxyaabaha ka faa'iidaya waxaa ka mid ah in markana even haddii dhibaatay qabsataan oo meel jooga oo ku sugan meeshaas camal oo kale even ilaahba keenay haddii meeshaas qarax uu qabsado ama waxyaabo kale inay isla markiiba anigoo qofka u baahanahay aan lambarkiisa raadin aan qorin isla markii emergency kolkayga aan qofkaasiytii aan kala hadli karo oo aan kolahaan la emergency taabto qofka ii wacayo xogta ku saabsan taleefankayga aqoon sidaas u balaaran uma lahayn maanta alxamdulillah xogta ku kaydsan taleefankayga haddii xaalad degdeg ay igu dhacdo ama xaalad emergency ah anoo goobta dhibta ay igu dhacday anoo joogo si familkayga iyo dadka markaas sirahayga aan ku qarsan karo aan markaasi aan ula wadaagi lahaa xaaladda markaasi ay haysato sidoo kale social media-ha inta badan gabdhaha wariyaasha qaasatan iyo gabdhaha kale dhibaatooyinka inta badan ay kala kulmaan haddii facebookooda laga jabsado sidii markaasi xogta facebookooda ugu keedsanay ay u soo celi lahaayeen gabdho saxaafadda uga baxay arrimo nooca la xiriira markii social media laga jabsaday ama mobilkooda laga qaatay oo xogtooda goonida ahaa ama shakhsiga ahaa laga qaatay kadibna lagu toorjirgareeyay inay ka baxaan social media ama inay warbixino ay sameeyeen ka laabtaan ama raadgelin ka bixiyaan ama in dee lacag looga qaato marka waa arrimo mucaawi aad u fara badan weeyaan oo tacadiya oo aad u fara badan weeyaan suuqa halka uu soo karin marka mudan agaas waxaan halka insha Allah ku rabnaa gabdhahan wariyaasha ah waana marka uu horeysay amal hadda qolo hadda ka hor soo loogu qabtay waa jirta kooban laakiin marka noqoto digital security-ga oo gabdhaha gooni loogu tababarayo waa marka ugu horeeyay Soomaaliya lagu qabto maanta waxaan halka ku qaadanay tababar ku saabsanaa sida aan u xakameyn karno amnigeena markay noqoto dhanka internetka oo inta badan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa warbaahinta ay u nugul yihiin inay kala kulmaan saameyn ama khataro kaga imaan kara dhanka internetka haddii noqon lahayd ciwaanadooda haddii noqon lahayd goobahooda gaarka ay ku baahiyaan shaqooyinkooda haddii noqon lahayd taleefanadooda gacanta oo khatar ugu jira haddii ay tuugo la kulanto ama dhibaato kale ay la kulmaan in waxyaabihii ugu jiray ugu kaydsanaa ay gacantooda ka baxdo marka si looga hortago in gabdhaha ay la kulmaan caqabado dhanka internetka ah wuxuu tababarkan ku saabsanaa in gabdhaha la baro sida ay iskaga difaaci karaan in ciwaanadooda lagala wareego sida ay iskaga difaaci karaan in xogaha ku jirta taleefanadooda lala isticmaalo ama lala wadaago waa u mahad celinaynaa dadkii ka caawiyay tababarkan inuu qabsoomo ama hay'adaha ka caawiyay sida Digital Defenders Partnership iyo HiForce waan u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa hay'adii qaban qaabisay Somali Women Journalists Rights Association iyo madaxdeeda tababarkan waa tababar aad u muhiim ah oo ka tarjumaya waqtiga aynu marayno waxaynu maraynaa waqti xasaasi ah oo dadka dhammaantood iyo guryahooda jooga iyagoo diyaarad saaran iyagoo dhulka jooga iyagoo badda jooga ay isticmaalaan aaladda internetka wax kastana ay soo fududeysay sida ay wax u fududeysay bay dhibaatadeena kale dhinaca kale uga leedahay waxaan arkaynaa qof la leeyahay haddii aan lacag soo bixinin waxaasaan soo daynaynaa waynu ku aragnaa had iyo goor muxuu social media oo aan waxba laga haynin oo ay tooshar tahay qof lagu maagayaynu aragnaa habluhuna way ka nugul yihiin dhinaca ragga marka dhibaato weyn ayaa lagu geysan karaa hablaha saxafiyiinta dhinaca muxuu ahaa digital security-ga marka lagu weeraro marka tababarkan wuxuu ku saabsan yahay sidii looga hortagi lahaa emailkaaga iyo telefoonkaaga aad u xafidin lahayd marka lagu weerarayo aad uga hortagi lahayd waana tababar aad u muhiim ah tababarada noocaanana waa kii koowaad baan filayaa ee lagu qabto
muqdisho sida wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxay soo dhaweynaysaa tababarada noocan ah